waxaa ku guuleystay kursiga ku-xigeenka golaha fulinta ee SSC Khaatumo mudane Maxamed Cabdi Ismaaciil. runtii oo ku faraxsanahay in xildhibaanadu codkooda iyo kalsoonidooda siiyeen sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa walaalkay Dr. Aadan oo natiijadana aqbalay ina hambaliyay ina ballan qaaday inuu ila shaqeynayo runtii waxaan ahay nin garanaya waxa loo doortay iyo xaaladda taagan waxaan rajaynayaa aniga iyo hoggaanka iyo guud ahaan golaha inaan si wada jira u wada shaqeyn doono bulshada SSC-na ay gacan ugu siin doonto iyo ta Soomaaliyeedba insha Allah waxaan rajayn doonaa hawlba inoo taala haddii alla ka dhigo waxaan kale ugu bashaaranayaa bulshada SSC intaasoo jeer baa waxay naga si noqdeen maanta waxaan leeyahay dad aad ku aamini kartaan shaqada baad haysataan inaad nala shaqaysaan oo ku fara adeegno hawsha noo dhiman waynu garanaynaa waqti dambe lumin mayno waqti dambe naga lumi maayo haddii alla ka dhigo waana guulaysanaynaa guddiga doorashadaan u mahadcelinayaa waqtiga dheer iyo juhdiga ay bixiyeen sidoo kale waxaan ilaawi doonin guddigii 33 ahaa meeshay wax soo gaarsiiyeen isimadii u dhabar adeegay dhalinyaradii u dhagax tuurtay u shahiiday u dhaawacantay ciidamada dhaxanta inoo jooga ee maanta suuro galiyay inaan laascaanood gudaheeda doorasho ku qabsanno runtii kuwaasaa mudan in maskaxda lagu hayo laga dareenkooda aan ilaalino waxay doonayaan aan ku shaqeyno waxaan rajaynayaa waa guulaysan doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan u hambalyeynaa walaalkay Maxamed Shiine ku guulaysiga uu ku guulaystay kursigan ku-xigeenka hoggaanka maamulka SSC Khaatumo waa tartan furan wax yani dareena oo ka xumaansho ah meesha ma jiro waa ku faraxsanahay inuu labada midkoodun heli lahaa waan ku hambalyeeynayaa waana la shaqeynayaa aad iyo aad baad u baahsantihiin